بسم الله الرحمن الرحيم داوديال meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijtooda oo aad dabcan kaga doodi doono xariga wariyayaasha oo aad moodo muddooyinkii u dambeeyay in uu soo badanayay oo dadka qaar u arkaan inay dawladdu si u wada xariga dadka qaarna halka u arkaan inay wariyayaashu dabcan aqoon badan iyo waliba arrimo badan oo dhinaca eedaha loo jeedinayo dhankooga waxaana barnaamijka dooda igala qayb gali doona agaasimaha guud oo dhaqan bidixdayga xiga agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Ilka Case dhinaca shishana waxa ka sii xiga afayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo dhinaca kalena xildhibaan golaha wakiilada Ibrahim Mahdi Buuba dhanka waxa iga xiga gudoomiyaha wargeyska yool oo dhinaca kalena ahaa gudoomiyihii hore ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solja محمد عبدي قوليد دينا عششنا واحد طبعا كسيحيقة يوسف كيس عبد الله وورفافته وقابل سن حسبك معارض كاي وعد دمانتين كسور دوادا وحانا تعالى هايين المركة وقوه الرأي أن هذا الكأوديبو أقاسمها قود وسارة ورفافته Somaliland وأن بالويديو إن سبب تسوع العلينا يسحر الجورياشا برينو مركو هراين كهلو بسم الله الرحمن الرحيم آدي أدبان دكوهم بليانيا تي في ستار محوها يو بدري يو فرسمي قانا ذي سراكيش كلا يو محوها صاحب ذي محوها يوسف يو محوها محمد يو اللي بانكبا ونصاحب له هاي وحويا طبعا لبا أرمود باكرة أرنو حويا حرية القول حرية القول حويا شيء مهم كا أين كل سنة أين كل شقين إنه aynu mataqaanaa ku jira dastuurka qaranka kana mida aasaaska mabaadiida qarannimada Soomaaliland shayga labaadna waxa weeyaan in suxufiga laftiisa waajibka saaran ee ah in marka hore waa in aqoontiisa aan dhisnaa muxuu ahaa nidaamkiisa dhisnaa sharciyadiisa hagaajinaa waxa soo duruufa aan kor u qaadnaa talabaadna waxa weyn isaga laftiisuna in xaqa qofka kale uu leeyahay ku jirtay ee uu leeyahay waxa ah mataqaanaa sharcigu ka reebay wadankan maalgashigiisa dawlad baa la doorto mas'uulka baarlamaan baa loo gudbinay inta wanaagii imanaya haday noqoto in wixiiba dhakada la iskaga ciideeyay deer waxyaabaha dambiga ah ka baxsan mataqaana xeerka xagga warhelida xaq buu leeyahay qofku inuu helo war xaq buu taagu leeyahay inaad waxa dhacda anaguna waxnu diin baa naga qoraan marka hadaynu ilaahay ka cabsanaynana oo inuu aakhiradeena u cabsanaynana oo aynu anigu malihi laguma xadgudba malihi iyana wax xadgudba ma leh labadaasaan anigu mataqaana dhexdooda markan si cilmiye u doodayo in wajigayga eegayo in aakhiradeeda eegayo in sharciga eegayo waxa weeyaan qofku markuu qof cirdigiisa wax ka sheego yaa loo raacaya wariyaa qofka shakhsiyadiisa wax laga sheegay marka amnigi wax laga sheegay loo raacaya ee la yiraahdo reer hebel baa hub soo qaato reer hebel ku weeraraya marka inta halkan la soo fadhiistay la yiraahdo reer hebel nahay reer hebel baan baabiirna la sii deynaya ma sharciba warniyo aynu mataqaanaa xisbiyada qaranku bariidinka ay ma doona maanta anaga joogna maalin qof baa ay ma joogi doona shaarkeena inaan ku tulin maalin quraatay aynu ku tulno dhismaha qarankan marka aan wax leeyahay suxufiga mid la su'aashu waxay tahay yaa suxufiya muxuu ahaa curad wada ogtay walaale yaa suxufiya aynu markaa si ay suxufigeena noogu mid labaad waxaan leeyahay wadankan waxaynu ka soo dhaqaaqnay meel adag haddaan saxaafadu dhismin wadankan dhismi maayo haddii saxaafadu qalooc inooga dhisanto kama saari karno haddaba aynu si wada jir ah wixii galdaloolooyinay jirana labada dhanba aynu ka kaashano yaan dhan u la fuulin haddii laakiin ay tahay ma garanaysaa aan ku afuuf taanoo ku afuuf markaa waan soo noqonaynaa afayeenka hadal kaasi ka waran curadada saxaafadii ka jooga arinta maxad ka leedahay gudoomiyuhu agaasimuhu horta waajibkiisa deeno sidoo loo hadlo waxana waa ka jiraan oo waajibku uu wada saaran yahay axsaabta qaranka iyo executive-ka xukuumadda talada marka haysa warbaahintana waajib baa saaran oo iyana ay tahay inay aanay ka gudbin laakiin haddana marka la qiimeeyo laga hadlayo dib loogu noqdo waxyaabahan aynu ka doodaynay eedda inta badan xukuumadda talada haysaa leh sida xildhibaanku uu sheegay maayarka wax xidha gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali tiraba 2-3 jeer buu ku celiyay inaan wariye la iska xidhi karin oo gudoomiyaha maxkamadda sare oo u dhigata maxkamaddii historiga ahayd hadalkiisu ciyaar maaha 2 jeer tiraba 3 jeer ayuu warbaahinta caalamka BBC-da VOA-da kuwa localka intaba ka sheegay inaan wariye la iska xidhi karin haddana way dhacdaayo maayarka imika aynu ka sheekeynayna ee berbera waaba ku faanay inuu xidhay
فعلا لكن agaasimuhu wuxuu leeyahay wariyaasha ayaga baa la moodaa inay quuxooga ka dheereynayaan oo aan dabcan dhinacii labada dhinac wareysanayn arrinkii aad u eegayn arrintaas maanay jirin wariyaashu dee malaa'ig maaha khalad way geli karaan waa bini aadan laakiin procedure iyo nidaam loo raacaa jira khaladkooda wariyuhu hadduu cirdigaaga ama sharaftaada meel kaga dhaco waxaa ku khasaba inuu halkii uu ku beeniyey halkii uu ku qoray warkaa sharaf dhaca ku mas-uulka inuu ku beeniyo warbaahinta ciqaab kaga xumi ma jirto war lagu yidhaahdo maanta star t v ay Faris News ka dhigatay oo la yidhaahdo berita beeniyo Faris News ka dhig war kaaga xumi ma jiro wax kaaga xumi ciqaab kaga xumi warbaahinta wixii ay shalay qortay oo ay halkii ku qortay ku beeniso hadana ciqaab kaga xumi ma jirto laakiin waxa dambiya in wariyihii waaran la'aan saman la'aan inta gurigiisa loogu tago la xidho waliba qaarkood lagu xidho meel aan munaasib ahayn qaarkood baa dhacday in xarumihi sirdoonka lagu xidho taas caqligal maaha waxa weeye waxa ummadda iska hor keenaya oo nin wariyaa oo kiiskiisu yahay madani dambiyada saxaafaddu gashaa maaha criminal waxa weeye madani maaha markaa in loola dhaqmo sidii terarka ama argagixisada oo wariyihii ugu dambeeyay maanta la xidhay xarun sirdoon baa lagu xidhay oo la geeyey mar dambe laga soo celiyay sida warka lagu sheegay oo ruuxsuusuna sheegay mar dambe laga soo celiyay CID da la keenay taasoo kale waxa weeye waa terror baa lagu sameeynaya waa la baqdin gelinaya waana dhacdaa institutional ay imka xidhan ma jira oo waxa la ku xidhan jira cid la xidhan jira waxa jira qaar dacwadoodu ay tahay ligan tahay oo marka uu institutionkaasu waxyaabo badan qorana la soo toosinayo marka damana laga yarseexinayo waayahay in afayeenkan ku soo noqdo afayeen siyada waa agaasimaha bismillaahir rahmaanir rahiim agaasimo horta waxaan oran lahaa bal waxaad maxamed dibug yaro malcsata ayaamihii qaraadha xisbiga kulmiye mucaaradka saxaafaddu hiilkii qaawanaa ee la garab taagneyd wax adduuna iyadoo kaga doonay sida hadda dhacdo dee institution weyn oo lacag uu ku xukumo imika tvda kale markay war ka qaadayaan asxaabta mucaaradka bilaash ma ahayn laakiin xisbiga kulmiye hiilkii caddaa ee la garab taagneyd saxaafaddu ee bareerka ahaa waad ogeydeen ee lacag la-aanta ahayd ee adduun la-aanta ahayd dib u milicso xisbiga kulmiye iyo u cid maalmihii ay isu bahaysanayeen in golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland la mariyo oo laga baasgareeyo xeerka saxaafadda somaliland amendmentkii lagu sameynayey shuruudihii lagu xidhay iyo wixii lagu kala iibsanayay haddaad dib u eegtood garanayso xeerka saxaafadda xeer number 27/2004 farqadiisa saddexaad ama qaybtiisa saddexaad iyo qaybtiisa sideedaad waxaan aaminsanahay agaasime inaad sidaa ugu hadasheen aad leedahay saxaafaddu iyadaa dadka meel kaga dhacaysa oo xagasho ku samaynaysa dhacdada ugu dambeysay nimanka tusaale usoo qaadan karaan berbera ninka wariyaasha la xidhay cidda ay warka ka qaadanay faafinayeen qof shicba mu ahayn muwaadin lasoo doortay oo degmada berbera golada deegaanka ka tirsan buu xaq buu suxufigu leeyahay waxa uu ku hadlo qalad sax waxay doontaa ha ahaato ninka xilka haya golaha deegaanka ka tirsan ama golo sharci ka tirsan inuu baahiyo sii daayo sidaad u baahaysaa in la yidhaahdo waa gaf iyo adiyad weeye iyo gardarro caddaana waxa weeyaan xaq buu leeyahay wariyuhu inuu baahiyo oo uu sii daayo waxa uu mas-uulkaas ku hadlay iska daa qof mas-uula dadka shacibka ah iyo warka ay soo helaan ay xogaha qarsoon ah saxaafaddu hesho ayaan lagu xidhi karin saxaafadda oon lagu qabsan karin ninka mas-uulka ayaa intuu halkaa la soo istaagay ka hadlay warkiisa maxaad u baahaysay marka la yidhahdana waa halkii ugu hooseysay wey saxaafadda sharcigeeda iyo qawaaninteeda iyo ilaalinteeda iyo karaameynteedii waa laga saaray meesha kutubasho way dhaaftay tacaddi way ka tagtay meeqaam ka liita oo lagu tusaale loo soo qaadan karaa haba yaraatee ma jirto sideedabana institution ahaan qaranka jamhuuriyadda somaliland qaybaha ay ka kooban yahay saxaafadda waa qaybta keliya hay-adaha caalamiga internationalka ay sideeda ku ogol yihiin ee ay la xidhiidhaan ee aqoonsan yihiin inay hayad jirto waddan baynu ahayn ictiraaf raadinaya waxyaabaha aynu ku doodaynay bay ka mid ahayd in saxaafadda xorta ay waddankeena uga shaqayso sida dunida hore martay inagoo dhowr 20 sano u jirnay adduunyada waxyaabaha indhaheeda usoo jeedinayay baa ahayd jamhuuriyadda somaliland saxaafadda xorta maanta halkii ugu liidatay bay maraysaa oo la marinayaa madaxa lagaga taagayay waxaa laleeyahy waxaa arkin baa laleeyahy waxaa sheegin baa laleeyahy afkaa kala furi baa laleeyahy ma oga
waxaan suxufigu faafinayo sii deynayo baahinayo inay tahay wixii beesha caalamka kusoo dhaweynaysa inay tahay qarannimadan iyo jiritaankeenna wax adkaynaysa inay tahay ninka wariyaha ah dee markuu beel hub soo guratay sheegayo waxa weeyaan xukuumadda baa dee ka gaabisay shaqadan beelahan hubka isu guranaya yaa isku diray yaa iska hor keenay suxufigu ma waxaad doonaysaa inaanu sheeginoo markay xabaddu dhacdo u leedhaa reer hebel baa reer hebel ku bugsaday oo dam ka siiyey xaq ba u leedahay saxaafaddu inay sheegto waana waajib saaran xukuumaddana iyada ka gaabisay roolka kala habaynta kala dejinta sugidda amniga intaba dee markaa ceebtoodii hadday sheegtay ceebtoodii hadday sheegtay xukuumaddu dee saad u dhigtay wayaan waxa weeyaan dambiile ma noqon karo suxufigu dambiilena kuma aha kiiska cidda dambiilaha ku ah ee duqeynta wada waxa weeyaan amarada noocaas dadka bixinaya ee imikana u arkaba faanka u arka ee ku tacadiyay waaye agaasimaha kaaga jawaabi doona laakiin yuusuf kaysaan jecela horta dee asxaabtayda dhameeyay waxa weeye horta haddaynan run isu sheegin wax ka xun baynu isu sheegin waxa weeye somaliland xeer bay u samaysatay saxaafadda xeerkii aynu samaysanay weli maxkamadda iyadoo laga dhaqmay ma aragtay iyadoo wariyeynta la soo taagay la leeyahay xeerkii baa lagu qaadaya maynu arkin maynaan arkin waa xeerka ciqaabta qodobka welibana adeegsadaan waa qodobka 220 xeerkan ciqaabtu 1957 ayay Soomaaliya samaysatay markuu Talyaanigu haystay waxaana laga soo dheegay dawladdii Talyaaniga xeer ay samaystay sodomiyadii kiiba Soomaaliland maanta lagu dhaqmay qaranka ceeb bay ku tahay sumcad darray ku tahay sharaf dil bay ku tahay in xeerka la mariyo wariyaasha aadna waan uga xunaa haddii xeer lagu qaadayo wariyaha kana damaanad qaaday wixii wariyuhu geystay iyo wuxuu qarribeen kan lagu qaado weli ma hayna agaasime imika halkan waxaad ka qirtay wariyaasha qaar inay matalan si gaar ah wax u sameeyaan si gaar ah wax u khaldaan si gaar ah qof shakhsi ah u caayaan weli miyaad aragtay idinku ku soo oogay damaana arkay weli anagu nin wasiiro oo ereenayo wariyo oo leh waxbu iga sheegay mooyaan ama waxbu iga duubay mooyaan ma hayna taa annaga idinku taageeran qaranku naga dhaxay annaga idinkaga warwar badan international community-gu intaan idinka waxa lidisoo annaga la soo weydiiyay annaga laga xaqiijiya wariyaha marka la xidho cid wax la soo weydiiyo waa annaga naxdin bay nagu tahay markan email-kooda arag annaga idinkaga warwar badan waxaan leeyahay wariyaha wixii uu khaldo ha lagu qaado xeerkiisana ha la mariyo laakiin xeerka ciqaabta ee Soomaaliya leedahay dawladda burburtay dhowr ilaa 10 sanadood ka hor inaynu meel iska dhigno weey Soomaaliland inaynu ka saarno weey waaye agaasimaha ku baajaa ka marka la isku soo ururiyo maxaad kale waxaan ka leeyahay waa sax waxa weeyaan aan mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad bidin ku celiyo waa number 1 in xurriyadda qowlka la ilaaliyo waa dastuuri wax qof laga bariyay ma number 2 in sifaha sharciga loo maraa waa wado iyana waa mataqaan taasna wax cid laga bariyay ma number 3 qodobka hadaba aynu rabnay inaan isla yar fahnaaye aan bal af kale inaan isku fahnaa tahay waxa weeyaan hadama habka khaladaadka lafteedu aan waxaan idku yiri qodobka ah in xurriyatul qowlka la ilaasho iyo qofka uu wariyuu sameeyay labada dhexdooda friction ka dhacaya inta u baahan jida waxa weeyaan waa kan ag fadhiya xildhibaan saaxiibnahay وانا تجرتو محمد وين ندب حركه لفتيسا الحركه ان صحافه لفتيده قال دلولوين كي كسو بخاي aynu mataqaana mudada la sameeyay kadib ka soo baxayna wada jir isagoo saxaafadii iyo mataqaan looyarkii iyo baarlamaankii iyo wasaaradii warfaafinta iyo ciidaha Xuseen soo dhami joogan sifaay caan ku tahay Soomaaliland ee wada tashiga iyo wax wada qabsadka ee aan ahayn in la isu yeeliyo aynu galdalooyinkii dib u eegno oo mataqaana ka laftiisu waa process socda oo wixii galdalooyin jira markad kale hadaan saxaafadu aynaan dhiirigelin oo aanay dhismin mar walba mataqaana wadankan dictatorship ku noqon maayo hadama waxa weeye isaga laftiisii oo bal qodobka tayna isla fahnaa bal dhinac kale ka eego gafafka imika walaalkii xildhibaan koon saaxiibnahay wuxuu yiri dawladda ayaa beelaha mas'uulka waxa saxaafada walaal mas'uulka in oo waajib saaran muxuu ahaa mataqaana dooda imika leenahay wixii gaf ku ah qof ku ah iyaga u taala inay erigaasi kala u dhigaan
laakiin hebel baa hebel u hanjamay hebel baa hebel dilaya de waa arrin abni waa arrin qaran weeyaan markaa qodobka meesha yaalla waxa weeyaan meel fiican waynu maraynaa halkii ugu fiicnayd baanay maraysaa saxaafadda iyo wada shaqaynta dawladdu sababtuna waxay tahay iminka ururka suxufiyiinta marka qof markaba noola soo hadlaa isla annaga laftigayga ayaa dhexdeeda ka garnaqsanona mataqaanaa habkaasi waa khalada ka daa waxaad joogteen shirkii aan halka wasaaradda madaxtooyada wasaaradda warfaafinta gudoomiyaha maxkamadda sare xeer laalinta bahda saxaafadda barsaabada la isugu yeedhay ee ahaa sidee baynu khaladaadka labada dhanba u saxnaa tallaabada ka weyn oo la qaban lahaa ma jirto oo ah mataqaanaa aynu intaan wada fadhiisano aynu isla saxno haddii laakiin ay tahay in cid wax ku musto halkeeda inagu niman aqoon-yahana baynu nahay mas-uuliyiinta waddankaynu nahay muxuu ahaa dee mataqaanaa waajibka saaran ururka muxuu ahaa xisbiga qaran iyo waajibka saaran saxaafaduba de waa waajib markaa waxa weeyaan war waajibaadkeena dhan walba saaran sidee baynu gacmaha isaga markaa dhankan kale lafteeda suxufigu waa muwaadin waana qof gafi karaa de askariguna waa muwaadin qof gafi karaa labadaba sidaynu khaladkoodu saxnaa qodobka meesha yaalla waa sidaa oo aanay noqon suxufiguna inuu noqdo mataqaanaa suxufiyiinta qaar ka midii dhangad cid lagu karbaashayo askariguna aanu noqon soo qabe waynu dhismaynaaye وبلدات إبراهيم ودلك شاعر كان حلو على ذلك عقلي سوى لك سيد وين وحنوية الحزبية قرن فنا الحزب جابوا حيك الشيء لكن سدابين وحوها قاعدين ماتوريتي إنه كانت سؤالها أنا هل سؤالي شيء ورئمك ويب سايت كي كدوان كشين ولا فلما كم تخانا محوها حل بان يسر كالي دما تمر ثان وين قف كدوان كشين هذا وين قف كم الله راعي شرتها تكلم institutions كسكحنا وحكلون تكون عدينا يا أنا جاي أقول هذا محكمة ورقة وقرأ intaasoo kees baa maxkamadda loo qoro xataa inta suxufiga loo yiri walaal uu iman waayay ceeb uma na qaadan waynu dhismaynaa sidaynu xisxinaa baa leenahay waka agaasimo ka dhawaajiyay wax yar oranaya warbaahinta Somaliland waxaan qabaa xukuumaddu maanta talada haysa marka dib loo eego taariikhda saxaafadda Somaliland saxaafaddu rool weyn bay ka soo qaadatay qaranka dhismihiisa amnigiisa abaabulka saarkiisa waxaa jirtay waqtiyada qaar ay istansar ahayd newspaperadu maanta ee tiriga waaweyni oo la qori jiray beesha ciidagale iyo beesha Sacad Muuse iyo daydayga Ciise Muuse iyo daydayga Isxaaq la qori jiray saxaafadda bedeshay oo u bixisay koonfurta Hargeysa iyo waqooyiga Gaasiya bariga Hargeysa erebixin bala sameyn jiray saxaafaddu iyada gaargareyntu hagi jirto situationkii aad ka saartay qaranka siyaasadda kuma saarin warbaahinta ka saartay waxa lagu wacyigeliyay inay hambaliyeen aroosyada dhalashooyinka waa lagu wacyigeliyay warbaahinta markaa fadhida qori jirto mid baa loo aroosi jiro loo jeedo si dadku ugu soo dhiiradaan waxa wanaagsan orta saxaafaddu roolkaasi ka soo qaadatay qarankan dibadda markii ay dambana meel fog bay gaarsiisay oo rag badan ka marqaati kaceen oo adduunyada meelo badan ku arkay warar laga soo xigtay warbaahinta localka oo de Soomaaliland anfacaya laakiin maanta waxa jirta amnigu ku celceliyay agaasimuhu iyo cidda ka mas'uulka xukuumaddu warbaahin bay taageertaa xisbiga talada haya kulmiyana warbaahin buu taageeraa inanka berbera lagu xidhay xildhibaan Saleebaan warkiisa soo tabiyay iyo ninka حزب الحاكم كو institution كيسا تاغيرا أما حكومته تاغيرتو إيه أفلقادين إيه جبوتي أو كله for example ورقيس باقوري إسماعيل عمر قال له دوينية هشيسكا دوي وكوبي وان هيا والريكورد وان هيا ويب سايت باقوري حكومته تاغيرتو شريط حكومته تاغيرتو أيا قرطي يدنا كوكو الله مده مركا ما السياسة دي دبده إيه أمنجي قرنكا ما حكومتي بعدو كوه مثل معارض بعدو كوه يا عدو كوه مركب institutions كي وربعين تيجي حسب قتلها يا تاجرين أي أفلاقيين دولتي درسكه وجبوتي أوكل أي أفلاقيين قدام بدوش كسران وقعدون صنايعان و إن كوه خلنا أي شخصيات دلك شوجا توصف أفلاقيين وإذا بالهيل بحسب بالهيل institution كله بالهيل بهالك كسر دوشي بالهيب عيل قرد كودو شيء وحاسة قرآن حكومة أنا تاجرتها مركا حكومة ويا قاسي جود بحكومة كتشوجا ما تاجرتها أنا وحبنا لهين حسبية معارض كها وضني أيها بتشبوتي عيدة إيه إسكتور كتشبوتي سومالي لان هذا العرض جود هذا قريب كهيد بقى
oo intay isugu haddii isugu waxa weeyaan xisbiga wadani oo Jabuuti markii muxuu halkan joogtayna xisbiyada mucaarad intay miidiyagu ay leeyihiin isticmaaleen ku isticmaalay in markaa ma taqaan halkan Jabuuti muxuu laga aflagaadeeyo oo dawladda Jabuuti laga aflagaadeeyo oo protocolkii wax laga sheego cidda buunbuunisay shaajireed gareysay haddii si qaawan curdo loo wada hadlo waxaad saxaafadda u adeegtay xisbiga wadani saasay ahayd xaga kale ku soo wadeegayso saxaafadaas ahayd si markaa dawladda Soomaaliland iyo dawladda Jabuuti isugu dhacaan tiina waa tii la isla fahmay markii dambe aanu saxnayn ma taqaanaa dawladda Jabuuti iyo xiriirka naga dhaxeeya aanu cadeynay mowqifkeedu suu yahay cidda maalgelinta tusaale ahaan investmentka u soo kordhay Soomaaliland ka hor muxuu ka shaqeysay waa saxaafadda taageerta xisbiga wadani ay tiri ma taqaanaa muxuu maalgelinta Soomaaliland u soo kordhay weyn ee qiimaha leh ka dambeysay taageertan taas ahayd haddii af qaawan lagu wada hadlo cidda waa anigan ku waxba male waxba adigu xisbiga cid waa already sawiye waxaan sheegayaa ma taqaanaa hordaysi war haddii qaawani la wada hadlo qaawna la wada hadlaya waxa weeyaan cidda maalgelinta qaranka u soo kordhay waa xisbiga wadani saxaafadda taageerta ay ahayd xisbiga wadani saxaafadda taageertana waa la yaqaanaa cidda wadagtana waa la yaqaanaa saw shaqasana waa la yaqaanaa laakiin waxa soo dhan marka la isku soo xooriyo waxa weeyaan sidee baynu u hagaajinaa marka aqliga lagu wada hadlayo aqliga saliimka lagu wada hadlayo sidee galdalooyin ka dhacay weeyaan xildhibaanka Salmaan Cali Khayre gudoomiyihiisii golaha deegaanka la doortay meesha fadhiya haduu wanaag ma taqaana ay socoto to waxa weeyaan gudoomiyaha golaha deegaanka la doortay meesha fadhiya markii xilliga soo gaadhay ka hadal Ibrahim agaasimu sheegaya in idinku warbaahintiin wada sida isagu hadalka horta waa nasiib darro ayaan darro waxa weeyaan waxaan u arkaa madaxda Soomaaliland waa hay'adii Jamhuuriyadda Soomaaliland u qaabilsanayd saxaafadda waa mas'uuliyiintii qaranka ugu sirsareysay suxufiyiinta inuu maanta saxaafadda ku eedeeyo oo uu yiraahdo waa saxaafadda wadani bal waxaad noo sheegtaa agaasibe saxaafadda wadani inay taageerto aad liiska ku siisay meel ka dhac bay ku tahay gef saxaafadda lafteeda meel ka dhac ku tahay eragaas saxaafadda waxa liiska lagu siiyaa oo xeerku tilmaamaya dhexdhexaad inay ka yihiin qaranka dhamaantii mucaarad iyo maxaafidba maanta inuu agaasimihi guud yiraahdo waxa jira saxaafad wadani leeyahay oo qaar kamid oo wadani leey de liisankeeda ma naaragno managa liisanka siin yaa siiyay liisanka de liisanka yaa siiyay ma jirto liisanka la si xaq buu leeyahay saxaafad laakiin hada gacan saddexaad ku isticmaalo dabada kamera ma jirto anagu ma naqaano dhaqanka xukuumadda hadday dhaqanka taqaano saxaafadda saa loo isticmaasho xisbi mucaarad baanu nay ma lihin anagu saxaafad noo gaara saxaafadda dhan waa noo dhaxweey waanu wada ixtiraamnaa karaami naga wada murayn si fair baan ula wada dhaqanaa midna ma soo dhaweysano midna anagu ma riixno ma eriyano sida day uu saaxiibka u dhigaya ama xukuumadda ay u isticmaasho saxaafadda tan uu leeyahay waa nasiib darro de mas'uulkii ugu sareeyay saxaafadda saa u hadlaya oo sharcigii ku tumanaya anagoo is hor fadhina imika oo la saxaafad gaar oo uu tilmaamayo right now uu sheegay xisbi waa saxaafad gaar leh yaa sharcigu halkii ka talaan xisbi saxaafad gaar yeelan karo ma jirtaba waa nasiib darro tan kale aan u soo noqdo maalgashiga iyo Djibouti iyo maxaa la yiraahdaa soo dhaweyntii ay soo noqon doonaa wuxuu saaxiibkii sheegay inuu wadani buunbuuniyay soo dhaweyntii madaxweynaha loo sameeyay iyo qaabkii uu tagay Djibouti de waxa hor kacayay waxa ahaayeen meel ka dhaca meesha ka dhacay sameeyay ragii hagayay ee hor socday ee protocolka madaxtooyada Soomaaliland saxaafadeeduna si fair oo cadaalad bay wixii dhacayay saxaafadda wadani taageerta Djibouti afka la gashay cid caayisay af laga deenaysa xukuumadda saxaafadda barasaadba wax ka sheegay Djibouti wasiirada wax ka sheegay wax ka sheegay mas'uuliyiinta Djibouti ay farahay ma jirto hal qof ana afaykiisa wadaniga oo sida agaasimuhu sheegay wararka gaarka qortay abadan laba soo heli maayo adigu suxuf baatay bal soo baad mana jirto wargees ama TV ama saxaafad gooni oo xisbiga mucaaradka wadan u leeyahay saxaafadda Soomaaliland si feeraba ula dhaqmaa waana isugu mid laakiin isaga cadeynaysa taasi inuu kala dhaweysto qaarna uu cagta hoosteeda geliyo qaarna uu madaxa dul saaro uu taasho waa nasiib darrada qaranka haysata nasiib darrada saxaafadda Soomaaliland ee ay
qaabka ay kula dhaqmayso xukuumaddani tilmaamaysaa waa marag madoon weeye isaga isku markhaati furay saaxiibkay anigu waan asturayey ceebo badan oo jiray baan ka aamusnaa mas-uul qaran buu leeyahay maxaa loo baahiyey wixiisii biyaan mas-uul qaran ayaa lasoo doortay horta mas-uul qaran lasoo doortay saxaafadaad gacanta ku hayso ee hoos xagan kale ka wada aynu isla ognahay waa la sheegayaa tallaabo sharciga ka qaado soo xidh bal caddeeyo laakiin saxaafadaad ka dhigto yaa xaq u siiyey waxa weyn ibraahimow xildhibaan mataqaana daahir yaa shamis saxaafadda waxaa horta sheekada keenay walaalkeena curad saxaafadda xisbiga waa gaar saxaafadda xisbiga kulmiye uu leeyahay u shaqaysa isaga ee xafiiska u qaabilsan media xafiiska media ugu qaabilsana tahay xisbiga waa gaar waxay samaynaysaa laakiin saxaafadda kale da TV-ga qaranka iyo mataqaan raadiyoga qaranka iyo joornaalka qaranku waxa qarankooda leeyahay sida caadiga loo isticmaalayo laga wada shaqeeyay xaq loo leeyahay laga wada qayb gale ee wasiirka xaq loogu laasada ku tuntay ma suwan ku soo wada isugu aftar TV qaranay lacag qaran baa xaq loogu leeyahay adiga maamul Ibrahim laakiin imka laga sideeyay Ibrahim xaq baad leedahay laga sidaayo وانا قرن بانا له وانا حق لوجو سيدو دينيو قدبك ماشي جرا waxa weeyaan qodobka meeshii ku jira waxa weeyaan waa ruuxii qarankan abnigiisa iyo cirdigiisa iyo wanaagiisa iyo diintiisa iyo reerihiisa iyo qadiyadiisa iyo wanaagiisa kala kaxaynaya taayndho nagu soo jeesan Ibrahim wixii ma taqaana inta saxaafadu waa lambar 1 waanu dhiirigelinaa waanu taageerinaa xorriyadda saxaafadda waanu dhisaynaa waanu horumarinaa xaq bayna loo leeyahay qodobka meesha yaala waxa weeyaan waa ruuxii inta ka baxsan aynu ka wada shaqeyno waxaan ku indha la'aan muran weli daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa xarunta guud ee telefishinka Star ee magaalada Hargeysa waxaan ku eegaynaa oo dabcan aad daawanaysaan dood ka hadlaysa xariga wariyayaasha iyo arrimo kale oo la xiriira wariyayaasha waxaana aad la wada socoteen oo muddadan ba aad ka daawanayseen TV-ga caalamiga ee Star Yusuf Kayse sidaad u aragtaa arrinta sheegay arrinta waxa weeye horta mid baan idin sheegayaa dawladda Djibouti waa dalaynu walaalnahay waa dalaynu jaarnahay xiriir fiican bay naga dhaxeeya anigu dadkii joogay baan ka mid ahaa ma garanaysaa meesha waxaan ku wari wax dee la bumbuniyaaba ma jirin wax la bumbuniyaa qarankaana ceeb ku tahay mawduucaynu ku soo noqono arrintan berbera qolada xukuumaddu waxay qarsanaysaa ma garanayo annagu xisbi mucaarad ahaan maalgashiga si cad baan u taagay waana guul qaranka u soo hooyatay waxa uu qaranaya kamaayirka ma garanayo mawduuca wariyaasha ku noqono agaas su'aal baan ku weydiinaya su'aashan ku weydiinaya waxa weeye wasaaradda aad joogto waxa ka mas'uula cadaani oo wasiirka warfaafinta aqoon iyo khibrad uu leeyahay saxaafadda midna male sidee buu ku hor waxaad leedahay waxbaan hormarinayaa baa leedihiin cadaani baa warbaahinta tababaro iyo siinaya haddii la doonayo in la wanaajiyo qaranka haddii la doonayo horta in la wanaajiyo qaranka anu haddaan madaxweyne ahaan la cadaan uma dhiiban welibana wasaaradii qaranka ugu balaadhan ana haddaan xil hayn la xisbiga kuma dhiiban afayeenka eegada horta eegada cayn ka tahay ana xisbiga kuma dhiiban qof kale aanu dhiibi lahaa taaswaad waa midib anu waxaan ka hadlayaa war wasiirka meesha maxaa keenay waxa keenay waxaanu ka doonaynaa wasaaradda miyaan waxaan ka doonaa aqoon badan kaana sharaf badan kaana karaama badan dacay ka noqoto war heede waxa weey taaswaad kan lagu dhigay meesha qaranka wasaaradda warfaafintu waa waxaanu ka hadlaynayaa waxaanu ka hadlaynayaa yaa ka mas'uul waxaan ka hadlaynayaa yaa qaranka mas'uul waa wasaaradda warfaafinta miyaanu cadaani ka ahayn haddaad cadaani ku xasantay gaar u kac war inay yaroo wariyo wariga qaaday inay yaroo wariyo xafiiska ii kaadi inay yaroo wariyo wariga qaaday inay yaroo wariyo wariga qaaday buu ayuu kaga joojiyay shaqada kaas hadleeda qaranku mudkay demaya horta dhegeysadee jecelahay bal inaynu u gudubno qodobkaasi uga gudubno bal dhinaca aqoonta iyo wariyayaasha iyo oo ayagii la leeyahay laftooda in curad baan isleeyahay aad ku horeysiisid oo la leeyahay iyaga laftoodii dhinac kaliya warka ka eegaan dhankii kale ma maraan oo haddii qof ka cabanayo qofkii kale uma tagaan iyaga laftoodii la leeyahay aqoon ma laha bal arrintaa maxaad ka leedahay oo qayb ka qaadanaysa xarigga la sheegayana wallahi arrintaa waxaa ka jira arrintaa aqoonta waxaa ka jira iminka suxufiyiintu tababara ma helaan waxaa ugu dambeeyey tababarada 2000 tababaro taya leh oo wanaagsan waxaa ugu dambeeyey 2006 ugu dambeysay project weyn oo BBC-du wado iyadu bixisay oo aad u ballaaran
oo qaybta ugu badan ka soo qaatay tayeynta warbaahinta soomaalida oo dhan oo qaybtiisa halkan anigu waan ka shaqeeyey oo waan la shaqeeyey oo institution baan usoo saari jiray wargeys berigaa usoo saari jiray marwada oo kale way ka shaqaysay qayb bay kasoo qaadatay oo waxay ka ahayd turjumaan bay ka ahayd projectka wuxuu socday 2 sannadood warbaahinta ugu badan buu dilaaciyey waqtiga oo aqoonta hadday tahay website-ada designadooda videoga editinga hadday tahay paperska idaacadda hadday tahay oo wariyaal badan oo maanta dee odayaala ayaa kasoo dilaacay oo kasoo kaxay laakiin maanta intaa wixii ka dambeeyey warbaahintu annagu waqtigan dowrku soo joognay dadaal badan baanu galay inaanu suxufiyiintu tababar hesho institute saxaafadeed in la dhiso ayaanu doonay maaya solteko waan ugu mahadcelinayaa dhul buuna siiyey aad u weyn blog buuna siiyey inaanu institute saxaafadu leedahay ka dhisno ayaanu ku tala jirnay nasiib daro dabcan xarigan imika sheegaysa mar haddaad qiraysa inaanay wariyaasha aqoon lahayn markaa miyaan la oran karin wariyaasha inay aqoon yeeshaan oo ay dhinaca maraan beexed oo dowladdu aad male sidaa maa la oran karin wariyaashu dhibaatadu waxay ka haysataa ciddii wax tari lahayd wax xukuumadda ciddii aqoonta u dooni lahayd wax xukuumadda maanta urur saxaafadeed oo dee maanta wax soo qaban karaya ma jiro laakiin cidda aqoonta u keeni kartaa jaamacadaha ka bixin kartaa waxyaaba badan bay xukuumaddu lacag ku bixisaa oo beelay ku bixisaa sooriyay ku bixisaa safaray ku bixisaa casuumaday ku bixisaa laakiin aqoonta saxaafadda in dee wax lagu bixiyo oo ay institution kastoo Somaliland ka jira hal wariyay jaamacadda uga bixiso ayaa ku waajibahay waad mahadsantahay runtii si xikmad loo cilmi leh u hadashay ururka suxufiyiinta sanadkan waxaynu ugu darnay miisaaniyadda qaranka oo aan ahayn inay cidna weexdaan kira kaga bixiseen cidna inay kira kaga bixiseen waa sax erigayga horta aan muxuu ahaa isdhegeysano muxuu ahaa waxaan ahayd maanta in xataa inala joogo gudoomiye ururka suxufiyiintu ayaa ahayd inuu fiicnayd oo iyagana qaybtooda ma cid kale u yeedhaan oo qaybtooda ay ka qaataan waxa weeyaan iminka ururka suxufiyiinta iyo dowladda jamhuuriyadda Somaliland wasaaradda runta aad bay wada shaqeeyaan taasoo ah in aynu kor u qaadno tababarkooda aqoontooda xeerkooda waayo hal arrin baa jira haddaynaan suxufiga dhisin qarankani dhismi maayo haddaynaan saxaafadda dhisin qarankani dhismi maayo haddaynaan xorriyadda qowlka dhiirigana qarankani dhismi maayo marka waxa weeyaan miisaaniyadda waxaynu ugu darnay si ay urur madax bannaan u istaaga noqdo sida ururka curyaamiinta ururka maxayde muxuu ahaa jaamacadaha miisaaniyadda ay xaq ugu leeyihin lagu daray xaq lagu daray tababaro fiican baana loo sameeyey wada shaqayn fiicanna way jirtaa iminkana mashruucan Somaliland Development Fund saxaafadda oo dhan horumarinteeda qayb bay ka yihiin in laga horumariyaa marka waa qodob muhiim ah oo aan ugu baaqayo suxufiyiinta walaal sharcigana ilaasha wixii xaq darhaana aan ka ilaalino aan ugu baaqayo dhinaca aqoonta waxa weeyaan ilaa maxadka uu sheegay mataqaana odayaasha hore saxaafadda runtii kaalin ka soo qaatay dhismaha ururka saxaafadda waynu wadnaa iminka maxadka laftiisii inaynu muxuu ahaa runtii dhisno dhiirigelino oo saxaafadiina la ururiyo oo ay codkoodii noqdaan iyaga dhexdooda xataa wixii khaldan iska qabtaan wixii saxana ay isku taageeraan lafteedii marka in aynu capacity-goodii aqoontooda kor u qaadno waa waajibna saaran waana xaq saara in la aqoontooda dhisno cilmi raaligaho agaasin wuxuu ku soo celceliyey ururka suxufiyiinta waanu isu dhownay iminkana wuxuu sheegay in miisaaniyadda qaranka uu ku jiro dee ururku wuxuu ahaa urur xirfadle ahaa urur madax bannaan buu ahaa inuu bayroolkii xukuumadda iyo dee budgetkii xukuumadda soo galo kalsoonidii ururka ayay horta wax u dhimaysaa waxba may tarin waxaa dhaantay 10 wariye oo institutionada laga qaybiyo jaamacadaha kaga bixiyaan ayaa dhaantay ururkii taa kalsoonidii waa ta ururka maantana ragaadisay xaqiiqatan haysa xiriir ka dhaxeeya iyaga iyo wasaaradda wafaafintana anigu ma qabee eedhiin may waa kuwii warbaahinta isu marinayay aflagaadada wasiirka iyo gudoomiyuhu isku haystay lacagtii eedhiin baa naloo dhiibi waayay iyo lacagtii eedhiin wasiirka loo dhiibay iyo lacagtii halka horta wada shaqaynta iyo muxuu ahaa ururka saxaafadda walaalo waad fiican tahay meel fiican buu marayaa keligiina dawladdu lacag ma siisee xaq qarankan wuxuu leeyahay in Star TV la taageero ayaa miisaaniyadda lagu daray media la oo la taageero marka macnuhu ma aha waa la iibsanayaa waa kobcinta aynu dhisayno
qarannimada somaliland ee sida jaamacadaha lacag baa lagu daraa injooyada lacag baa lagu daraa wax allaale waana wax baarlamaan ka maro oo ma aha wax ma aha qof gaar la siinay waa capacity building xisbiga waa intaasun isku dhucuna uu iman karaa noloshu ka mid yahay ee isku dhaca laftiisuna noloshu ka mid yahay maanta de lama isku dhici karaan bari wala sixi karaa laakiin waa in horena loo socdaa khaladaadkiina la saxaa anigu horta su-aasha sideedan oo baaraya xadhiga saxaafadda ma waa aqoon darro saxaafaddaa baa jirta mise waa tacaddi kale xukuumadda ka imanaya su-aashu saas ahayd anu ma aaminsana aqoon darro saxaafadda ka imanaysa dhankeeda inuu ka imanayo xadhiga suxufiyiinta ee xadka ka baxsan ee habeen iyo maalin taagan waxa weeyaan tacaddi badheedh ah oo xukuumaddu ugu talagashay inay ku caburiso oy afka iyo dhagaha iyo indhahaba ka xidho taasina wax suurtagelaysa maaha waana ku jabayaan saaxiibadeenna waa haddaanay hore ogeyn makaba baarlamaan la soo doortaa mid baa ku sheegaya mid baa ku sheegaya baarlamaan la doortay baa tahay xisbina waa tahay xaq baa lagu leeyahay wax ka qabato wax ka saxdo waa sax oo sharciyadeedu wax ka tarto dema adigan sameynayba qoladaasina waa beheblaayo qoladaasina waa beheblaayo maraysa saxaafadda dema adigii baa mid dabada taabanaya oo sameynayn halkaad marinaysa wad aragtaa beheblaayo saxaafadda u kala bixisay xilliban saxaafadda waxba saxaafadda mid baan ugu soo celinaya saaxiibkay wasiirkii isaga iyo wasiirkan ka horreeyay saxaafadda inay wax taraan iska daa budgetkii iyo miisaaniyaddii aan ugu talagalnay ee golu baasgareeyey saxaafadda in lagu horumariyo aqoontooda kor loogu qaado waxay u adeegsanayeen inay ku sameeyaan xeer saxaafadda lagu cabbo sanadkii ku jirtayna xeer saxaafadda lagu cabbo sanadkii ku jirtay kana lagu daray kana imka lagu daray hada markaa hada miisaaniyadda anad akhrin markaa dema miisaaniyadda akhrin sanad kan baa lagu daray miisaaniyadda mid baan ku sheegaya ana wasaaradda mid baan la kulanaa waanu u yeedhnay wasaaradda warfaafinta khubaraanu uga yeedhnay waxaanu nidhi bal qaabka saxaafadda somaliland kor lagu qaadi karo iyo budgetka miisaaniyadda u baahan tahay soo bandhiga waa loogu daraa way ka hadlaan sanad walbana way ka hadlaan dhegeysta sala calee way jirtaa mar walbana arrintaas way taagan shantii sano ee somaliland aad madaxda way jirtay dhegeyso xeerku wuu jiray saxaafadda kab baa jira joogta ah hadda dhegeyso iska daa wax kale oo ay u taraane adduunkii loo baasgareeyey waxay u adeegsanayeen isagii wasiirkan ka horreeyey og cabdillahi cukuse saaxiibkay inay ku sameeyaan xeer lagu gowracayo xeerkaa jira ee qaranku leeyahay xeerka saxaafadda oo golaha keeneen oo kharash intaasi ku bixinayeen oo damceen inay jujuub ku baasgareeyaan oon hor istaagnay oo aan suurtogelin ilaahay mahaddii ay suurtogeli weyday in xeerkaas maanta haddii kaasi hirgeli lahaa maca halkan ay ka wada hadleen fadhinaa mabay jirtaba waxaan kuu sheegaya haddaba somaliland saxaafadeedu iyada halkaa gaadhsiisay somaliland hay-ad ka adag oo ka waxtar badan qarankani uu leeyahay oo soo maray ma jirto 5,000 oo jeer bay isku dhaantay wasaaradda warfaafinta saxaafadda madax bannaan xorta caalamka aynu maanta higsanayno iyo ictiraafkana iyada halkaa gaadhsiisay hadda wax loo baahnaa dee horumarkeeda inay ka shaqaysa hagardaamadeeda inay ka shaqaysa maahayn waxaan anigu ku caddaynayaan kuu sheegaya maanta intii xukuumaddan talada haysa maanta ay talada haysay iyo tii ka horreysay inay aad u kala fog tahay adba xukuumadda ka mid baa tay kala maqnide adba dowladda ka mid baa tay horta isugu horta imika ku sheegaya wariyaasha iminka berbera lagu xidho nin soo fadhiista la yidhaahdo waxuu noqday taariikhda uu ka galay 2005 kii malaa wariyaashii ugu xadhiga badnaa buu ka qayb galay hees buu sameeyey oo xukuumaddan u tiriyey isagoo weliba jeelka ku jiro oo dibadda loogu soo markaa wadanina laxanka saaray markaa wadanina laxanka saaray markaa wadanina laxanka saaray waxaan ku yiri horta ibraahim wariyahay horta ibraahim haddii horta qaawani loo wada hadlo haddii wadani laxanka waa dhegeysan maayo haddii wadani laxanka saaray aan ku sheeg horta aan ku sheegay horta xildhibaanku waan karaameynay laakiin ma taqaanaa oo anaba markaan xisbiga ahayn mar saas aanu xiiqsanayn laakiin bayntku waxa weeyaan anigu wasaaradda warfaafintan ka shaqeeyaan ogahay miisaaniyadda sanadkan aan ku arkay ku taala ma taqaanaa miisaaniyadda weli kuma taala sanadkan wasaaradda maaliyadda lagu daray saan warfaafinta soo marin inta taageerada ah ma taqaanaa saxaafadda xeerka saxaafaddana waxaan horay u sheegay imikana sheegayaa waargal daloolooyinka xeerkaa ka soo baxay ee la isla wada arko eed adigu aragto ee ucid arko ee curad arko ee solja aragto ee suxufiyiinta wadaniga arkaan galdaloolooyinka qaybo dhan baa ka maqnaayo berigaa la sameeyay aan ku jirine qaybihiina ha lagu daro yaanay cid gaarna ansixina si wada jira qodobada ha loogu daro qodobka ahi waayo wax weyn saxaafadda gawricitaankeedu
jamhuuriyadda somaliland xisbiga kulmiya madaxweyne siiraanyo وين وزارة ورفافينتا لمبر 1 waxa uu ah in la dhiiri geliyo dhinaca kalena muxuu ahaa ibraahino saaxib xildhibaan gudoomiyaha baarlamaanka wadankan wuxuu wanaag leeyahay xumaan leeyahay qayb ku leeyahay wadankan hadduu horumaro oo qayb gaadho waan gudoomiye xisbiga wadani waan ixtiraam hayno waan gudoomiye baarlamaanka adigu waxa tahay baarlamaan la doortay wadankan wuxuu wanaag gaadhiyo xumaan gaadho qayb baad ka tahay marka horta cid gaaro hadii imka cid weyn eedeyn kartaa sababta ay waxba ma hayaan laakiin labadeena qole meesha wada hayaa dee waxa weeyaan wixii walaal inaga dhiman balada dhageysta aynu ka wada shaqeyno oo marka walaal maalgashi yimaado walaal ha ka nixina ku farxa ee waxa tirahdaan ee isugu walaal kaadi walaal waxa tiraahdaa walaal halka ka saxan wadankiina cid ka naxda waa idinka horta isugadee horta aan saxna dhee cid ka naxda ee maalgelinta ka naxaysa waa idinka ibraahino saxaafada laba qaybood u qaybsan qayb soo dhaweynaysa maalgashiga berbera iyo qayb ka hor maraysa duqeynaysa saxaafadana sanbati kaga helimaysid saxaafada la caburay saxaafada lama caburinayo saxaafada waan dhiiri gelinaynaa wixii khaladaada waan saxaynaa wixii duruufaa waan saxaynaa iyagana xaqooda waan saxaynaa laakiin ibraahino lixdii sanad haysay dhakada madaxaad kaga taagneed lixdii sanadna saxaafada wax khaldaya maaha saxaafadu waana jiri doontaa wadankan iyada soo dhistay qaybna ka ah anaguna qayb war ma ka diraysaa caburti xeerka hagaajiso ee aad kuwa lacagta gaarus ee kuwa gaarka lacagta aad soo siinayso ee aad leedahay kuwa ku dhila ka daade war kuwa lacagta soo siinayso ka daa war kuwa gaarka u soo dhiirigelisa ka daa aynu dhisna saxaafada baarlamaan baa tahay aynu qayb ka qaadano aynu qayb ka qaadano makan war kuwa wanaagsan ku taal xasuufi adigu waxaad leedahay hadda waxa ugu dambeysay waxaan jecelahay kelmad baa ku soo ururiyay ibraahino waxaad leedahay wargeyska ogaal saxaafada qaybtii ka dhinayd waxaad ibraahino waxaad leedahay ibraahino saxaafada waxaad leedahay war ibraahino waxaad leedahay jabadayso waaye wad ka baxo saxaafada aan ka baxo saxaafada waynu dhiiri gelinaynaa waan dhisayna adaa khayaalka isku sheekeynaya war waanu dhiiri gelinaynaa war waan dhiiri gelinayaa adu waxaad leedahay wax walba qof ka sameeyo xagee ku taala ibraahim war ha dhiiri gelin xumaatida war xumaatida dhiiri gelin war ilaahay ka baqo war xumaana dhiiri gelin adiga ku qasab aan dhisno horta ibraahim lahayd qof kulmiye ahaa oo kulmiye ogaa markuu mucaaradka ahaa inuu maanta halka fadhiyaabaa ilka asagoo garanayna dee xisbi mucaaradna ma ahaan jirin kulmiyana ma ahaan jirin dadkii imika eedda lagu keenay buu ahaa xilka eedda lagu keenay buu ahaa ibraahino mid baan ku sheegay ibraahim warad ba qabyaalad xisbi kaalay qabyaalad xisbi ku gashay waxa meesha yaala waxa weeye sheeye ma taqaana lacag sheega oo lagu qoro laaluushe kii ugu dambeeyay ba ku sheegay war laaluush baad ku fadhiyaa laaluush baad laaluush mid ma kugu soo dhaway saxaafada oo dhacday laaluush wariyaa ma bartiriso laaluush horta laaluush waad ku fadhidaa qabyaaladna waad ku shaqaysaa waxaad wadan wanaga qaran dumisna waa tahayo qaran dumisna waa tahay adaa xamar xiriirkeeda wada oo edin mayda diidan adaa cadeen doonta kulmiyana waan ha qaran dumisna sheegayso waa kiis mas'uul qaran gale weey qaran dumisna buu sheegayaa bal ha cadeen adaa maxkamadda ku istaagay adaa maxkamadda adaa qabyaalad ku shaqeeye war adaa qabyaalad soo shaqeeye mid baan ku soo gabagabay war mana eedex kale u kale mana eedex u kale meesha wargeyska adaa qabyaalad ku shaqeeye adaa laaluush qaataa war ma soo dhaweynayo ibraahim war mana kulmiyahayn ibraahim mana kulmiyahayn war qabyaalad ku shaqeeye oo laaluush qaato qaran dumisa siyaasadda waxa ka dambeysay ku soo dhaweey Yusuf Kayse intaan Yusuf soo dhaweey Yusuf Kayse ma hay bal cadeeyo kaase caaradaatihiin oo xisbiyada Soomaaliland kamida in dawladdu samaan iyo waliba xumaan wixii ay warbaahinta gelisay cid waliba way arki kartaa laakiin idinku xisbi mucaaradaatihiin haddii aad talada dalka ku guuleysataan maxaad wax ka bedeli kartaan horta waxa fiican adduunyada dhan baa laynaga daawanaya wadanka gudihiisa mas'uuliyiintii qarankeena inaynu si degan u wada hadlo dadkana u bayaamino halkay sartu ka qurunta u bayaamino dad iyo halka wax ka khaldan yihiin laakiin agaasimi sida waxba ku saxmeeyay xildhibaan su'aasha Yusuf Kayse su'aasha waxa weeye mucaarad ahaan maxaad ka bedeli kartaan idinku
وسوينا ونصون قنية سؤال شاس تي أي كسر حدا ما كسر حدا horta mid baan idiin sheegayaa xariga wariyaashu sifaha sharci darrada loo maraa waa khalad waxaanu xadgudub ku yihiin xorriyatul qowlka iyo saxaafadda xorta adduunyada waxaynu geeska Afrika dheeraana waaynu ku faanaynaa waa nabadgelyada iyo xorriyatul qowlka ayaynu ku faanaa adduunyadoo dhanna kaga dhex muuqan haddii aynu ishii baktiinadee waa mashaakil annagu haddaan xisbiga mucaaradka xisbiga anigoo xisbiga mucaaradka ku hadlaya afkiisa waan ku taageersanay xukuumadda wixii wariyuu ku khaldan yahay in tallaabo sharci laga qaado laakiin loo maro sifo sharci loo maro oo xeerka lagu qaado xeerka loo sameeyay wariyaasha haddii xeerka ciqaabta uu noqdo annagu meel adag baanu ka taagan waxa weeye in xisbi ahaan annagu 14 sanadood baan dee ku jirnay saaxadda siyaasadda Soomaaliland xukuumad hore way nagu soo martay tulabaadna way nagu soo martay image-ka iyagu ay bixiyeen kulli waanu ku magaranaysaa lessons learned ayaanu ka qaadanaynaa oo wixii marka xukuumadana aanu magaranaysaa wixii ay ku saxsaneedna waanu ka qaadanaynaa waxay ku khaldaneedna waanu ka qaadanaynaa xukuumaddii hore daahir riyaale wixii ay ku saxsaneedna waanu ka qaadanaynaa waxay ku khaldayna waanu ka qaadanaynaa wariyaashu ururkooda horta haddaad organization maqasho agaasimaadkiisaan ku yar noqonayaa inchi waa non government organization haddii uu dhaqaala galo oo la siiyo waa non political hadduu dhaqaala galo waxa weeye kalsoonidiisa baa midmadu gelaya haddii dhaqaalaba uu qaato xitaa waa la wada shaqayn karaa dal isku midaba qaran baynu wada leenahay waa la wada shaqayn karaa hawlaha iska keen soo geli karaa waynu wada shaqaynaynaa laakiin si eeg in ma garanaysaa dee la isku milmo ma dhaqaalahaasi sidaa uu curad yiri baan anu qabaa in wariyaasha tayadu imika qodobka 30aad ee xeerkan imika aynu hayno waa kan qodobka 30aad wuxuu sheegaya wariyaasha in la dhiiri geliyo gudoomiyaasha goboladu la shaqeeyaan tababar la siiyo aqoontooda kor loo qaado waayay kaad Yusuf 2006 buu inoo sheegay imika curad in tababar ugu dambeeyay way qaataan tababar in deek aqoontooda kor loo qaadayo jaamacada la geliyo ma garanaysaa laga soo saaro annagu ka xisbi ahaan aan su'aasheeda ku soo noqday waxa weeye waxaanu ka leenahay qorshe siyaasadeed oo cad baanu ka leenahay political program-kaygana waa geli kartaan website-ka xisbigu leeyahay waa ka heli kartaan ucudbaarti.com waxaa ka mid ah horta madax banaanidooda waanu ixtiraamayna annagu tababaraanu siinaynaa sidaa curad uu sheegay waxaa noogu jirta inaan wariyaasha aqoontooda aanu kor u qaadno in ma garanaysaa organization-kooda aanu ma garanaysaa la shaqeyno oo si fiican ula shaqeyno waxaanu ballan qaadaynaa annagu haddii aanu talada dalka ku guulaysano inaan wariye nin barasaabina soo xidhin nin maayarina soo xidhin haddii uu khalad wariyuu sameeyna sifa sharciya loo marayo xeerkoodana inaanu amendment ku samayno afayeen xisbi mucaaradaad tihiin horena waa su'aasha Yusuf Kayse u weydiiyey idinku haddii aad talada dalka ku guulaysataanba maxay idin ka meeliyaan warbaahinta bismillaahir rahmaanir rahiim anaga warbaahinta waxaan nooga meel yaalaa inaanu ixtiraamno karaabayno qadarino isla markaana aan ku dhaqno xeerka saxaafadda ee qaranku leeyahay xeerka saxaafadda ee uu qaranku leeyahay annagu insha Allah noqon mayno kuwa adeegsada xeer ilaalinta guud ee qaranka oo lagu talagalay xeerarka qaranka inay ilaaliso oo iyada laftirkeedu xeerarka dumisa وأديكسن مين واحد نقول دون تحير لالين إبراهيم إرجع كده وحقيقة دي بدون كاين داون إيه طب تدي بنا هي إبراهيم حير لالي وحويه العدد يقدم بيسي وقال وح ربنا يلقى أهم دعونا يمروديس دعوة دا وسو أوجي حير لاليو وكو عدينا ياهم كلارفيكيشن ما كو سمعني مو كو أوجي نين حيركا حير نمبر 27 2004 صحافة الله هاي لو ما أوجي حيركا وحلوه ذي باينال كورك لنا أينا شغب أقول هاي حيركا عقابته عندك سوق يسدم بجازك سوق هذا السنة حراليه الجودة قرنكوية نقول من أنه كسلا حراليه الجودة قرنكوية وإلى أن دون حيرك الصحافة يسوفيد هبكا أول رغمية محكمة دنا وحلوه هرجين دونا وارنو محكمة الله ده وصف الشرع يوصل بحي وسيرنا أمر وما هيسن دونه عسكري سنتو أمر كبحيان ولا هذا حرس حفيقا كبرتك قاعد بربري لا دعوة عنده في قطف
dhici mayso mas-uulka qaran ee tallaabada ku kaca si laftiisa tallaabo laga qaado markaa anagu karaamayn iyo qadarin iyo ku dhaqankii saxaafadda ee sharcigeedii dalku lahaa ee aynu gacanta ku hayno ayaanu ballan qaadaynaa inaanu ku dhaqno oonu ku qadarin oo ku karaamo curad baan isleeyahay warbaahintiisa uu ka jooga in xisbiga kulmiye hore intii aanu talada dalka u qabanin hadallada imika xisbiya sheegayaan waa sheegayay imika xisbiyadii mucaaradkuna waa kuwana waxay leeyihin waxma aan warbaahinta tari doonaa maxaa adiga kaaga baxay wallahi dee kolley siyaasigu dee waa hadallo siyaasi hadalladan imika dee hore kulmiya uga hadlay waayo dee markii xeerkan la sameynayay kulmiya dee xildhibaanadii waqtiga xildhibaanadiisa waxaa ka mid ahaa Saciid Cimri Roble tiim bay sameeyeen iyagii ucid adag oo xeerkaa sidii xukuumaddii daahir yaale loogu khasbi lahaa in ay dhaqan geliso baarlamaanku ansixiyo ayaa jiray tiim saxaafadda oo la shaqeynaya Faysal Cali Sheekh ka mid yahay agaasimaha guud ee imika wasaaradda boosuu ayaa jiray maxamed axmed baa ka mid ahaa waqtiga xildhibaan ahaa xildhibaanada ugu adag ahaa marka dee kulmiya intaa iyo inka badan buu oran jiray iminka qoladani sheegayso wadan iyo cid inka badan buu oran jiray in idaacado xor noqon doonaan buu qori jiray oo cid walba furan karto tviyadu inay xor noqon doonaan oo aanaysan iminka noqon doonin inaan xadhig dhici doonin in xeerkan saxaafadda ee labada gole iyo madaxweynihii horeba ansixiyeen in la dhaqan gelin doono oo tiraba dhowr jeer oo dambana intii xilka hayeen madaxweynuhu uu sheegay inuu dhaqan gelinayo annaga waqtigii ururka mar waxay nagu yidhaahdeen waanu dhaqan gelinaynaa waxaad nagaga bedelataan in amendment lagu sameeyo xeerka la furo dadna duruufii iyo xaaladii waqtigaa lagu jiray iyo xildhibaanadii golaha wakiiladoo aqlabiyadu tahay muxaafid markaanu eegnay iyo xeerkii wasaaradda warfaafinta soo diyaariso ahaa xeer aan dee curyaaminayay saxaafadda runtii oo caqabad weyn ku ahaa waxaanu dooranay inaanan ogolaan in xeerka la furo waxyaabihii xitaa ururkayagi waqtigayagii cimrigiisii loo soo gaabiyey ururka noolagu faramaroojiyey ayay ka mid ahayd in aanu ishortaagno xeerka in la furo oo maanta aan loo baahnayn wax ka maqani ma jiraan broadcasting looga iyo paper looga dee waa isku mid weeye suxufigu dembigu galaa waa hal dembi qof inuu cirdigiisa ama sharaftiisa meel kaga dhaco waxaan jirin qaabka uu uga baxayaana waa inuu beeniyo iyagu waxay ka dhigeen in la sameeyo commission in la ganaaxo baa xeerka ku jirtay oo $10,000 qofka la ganaaxo waxaa ku jirtay in leesan la sameeyo oo wariyuhu sanadkii leesan qaato oo sanadka haddii aad muxaafid noqon weydo sanadka dambe dee leesanka waxa bixinaysa wasaaradda warfaafinto kusoo noqon maysa shaqadii wan yar bay shaqadaada noqon suxufinimada wixiina waa mihnado dhakhtarada iyo injineerada guryaha dhisa iyo waa mihnada la bartay oo waa professional lagu shaqaysanayo maaha wax leesan yar loo qaadanayo sanad shaqaynaya marka waxyaabahaas oo dhan baa berigaa jiray marka kulmiye qoladan wuu ka hadal wacanaa aad buu uga hadal wanaagsanaa madaxweynuhu axmed maxamed sinaayo anoo ixtiraamaya aad buu uga hadal wanaagsanaa markuu isagu shakhsiyan ka hadlayo dadka la xidho suxufiyiinta la xidho kuwa lagu tacadiyo aad bay u qaylin jireen way mudaharaadi jireen way dabad bixi jireen waxaas ma samayn jireen aad baa maasabtayn agaasi maxaa kaaga baxay hadalka waa runtii aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa weeyaan xeerka saxaafadda wixii ka dhiman ee la isla garto waxaan aaminsanahay in lagu daro waxba kama dhinna waa fikirkaaga waa fikirkayga xeer dejin maynu waa fikirkaaga waxa weeyaan xeerka saxaafadda marka iminka dib loo eegay taa macnaheedu maaha inay qof u adeegaan inay qabiil u adeegaan inay xisbi u adeegaan inay qof waa inay qaran u adeegaan waxa weeye marka haddii xeerka saxaafadda muxuu ahaa guud ahaan marka la eego ee suxufiga soo fadhiistay lawyerka soo fadhiistay xildhibaanka soo fadhiistay xisbiyada soo fadhiistaane cidday soo fadhiistaan haddii la arko ileen mataqaanaa muxuu ahaa nolosha way socotaa xeerkuna way socdaaye taasi waa taa ta kale waxa weeyaan in la sameeyo commission madax bannaan oo markaa ka kooban dad kala duwan oo aan ahayn wasaaradda warfaafinada iyo dowlad khaliye oo markaa noqda mataqaanaa sida waxaasna tahay waa qayb ka mid a khibradaha waan kuu soo wada hadda waan ku dhegaysanayay may horta haddii la doono shanta waa ka yimaadaan shan dubad may hadday doono shan dubad ha ka yimaadaan waxa weeye in suxufiga la horumariyo in sharciga la horumariyo waxaa kaloo aad iyo aad halkan xaal uga siinaya xeer ilaalinta guud ee qaranka oo walaalka Ibraahim yiri
waa xeer dumina maaha xeer laalin waa xildhibaan lasoo doortay waa afayeenkii xisbiga markaa malaha erigaa shaydaan baa ka keenay isbu xumaan aanu jeedin baa laga yaabaa laakiin de waa in xeer laalinta la weydiiya ladhaa mataqaanaa xeerkaad raacaysaan maxay tahay calay xaal horumarinta saxaafadda dhiirigelinta saxaafadda muxuu ahaa ayaa anagu aan aaminsanahay waxaan aaminsanahay inaanu tababaradooda la horumariyo in saxaafadda la ilaaliyo afayeenka cid waxaan leeyahay saaxiib mataqaanaa xeerka haddaad dib u aragto iminkaba haddaad miisaaniyadda qaranka dib u eegto inta meelood xaq u leh lacag la siiyaa de waa arrin qaran ma aha inay cid ugu jaabto xaq baana u leedahay sida iminka xisbiga cid lacag loo siiyo xisbiga waddan lacag loo siiyo een lahayn dowladda u guuladeeya ayaa waxa weeyaan saxaafaddana wixii lagu taageeraya kabaasigooda lagu dhisayaa macnaheedu maaha inay cid u mataqaanaa guuladeeyaan wixii khaladaadee dhaca waa non governmental organization waa non governmental organization xisbigana political maaha marka anu waxaan leeyahay sidaad sheegayso ibraahim oo fiican baa muxuu ahaa yuusuf erfemad ka dhawaajisay barasaabada waa naga u yeedhnay waa naga nidhi mataqaanayaan muxuu ahaa suxufiga lagu xidhin suxufigana walaal waxaan leenahay waar walaal adigu diintana ilaahayna walaal yuusuf aan hadal kale helnay suxufigana waxaan leenahay walaal warka doon xaqa raadi xaqa iftiimi laakiin qofna ha ku gafin qabiilna ha ku gafin qaranna ha ku gafin diinta iyo amnigana ilaali intaasubaa mataqaanaa qodobku yahay anu halkaa maaha talaa lay weydiiyey isug may baladeega ada curad haleexan intii hore waad ficneeda haleexanin doorta intii hore bal isugada haleexanin ereyga halkaad ku cadaynaysaa balada odaybaad hadda markii hore horta haddaad sidaa lahaa wuxuu ilaabay in wasiirada iyo agaasimayaashana xamar lagu dilo curadow intii hore odaybaad dhexdhexaad baad haydee horta intii hore odaybaad hayd dhexdhexaadna waad hayd muxuu ahaa haddaanu aniga ibraahim isku fakanayn inaadna kala qabtaabay ahayd waxaan kuugu celiyay mar labaad waxa weeyaan xeerka saxaafadda galdaloolooyinka ka dhiman ee la isla garto maaha cid gaari yeedhiso balada erigaaga ila waa waynu hadlaynaaye ee cid gaari yeedhisa maaha marka la isla gartay ladhaa mataqaan galdaloolooyinkaasaa jira ee aqoonta cidda uu leeyahay sharci muxuu ahaa saxuufadda cidda magarasa looyarka ah iyo cidda maxayga soo jeediso waxa weeyaan waa mataqaanaa waa barbosalka aan anigu aaminsanahay kulmiyana aaminsanahay qarankuna aaminsan yahay waayo sida xeerarka kaleba ee maalin walba xeerka doorashada amendmentka loogu sameeyay la mataqaan galdaloolka soo baxay kana wixii ka soo baxay weeyaan waxaynu aaminsanahay isugde waxa kale oo aaminsanahay horta waxa kale oo aaminsanahay xorriyatul qowlka in horta isugde su'aal baa ku weydiinaysa xorriyatul qowl horta muran ma fiicna anaysa ila tahay doodana in dalil kala faa'iisto dadka daawanaya ka faa'iistaan baa fiican runtii xeerka saxaafadda uu dhammaystirayay annaga gacanta ku haynay soo saaranay samaynay xukuumaddana 6 sannadood joogtay hal maalin oo keliya kuma dhaqmin xeerka saxaafadda suxufi kastoo la xidho si qeylo sharciya loo xidhiyo baalmarsan xeerka suxufi kasta oo gaf laga galo oo hagardaamo loo geysto xeerka saxaafadda wax ka baxsan oo anshaxa saxaafadda weydaarsan baa lagula dhaqmayay maantana way muuqataa muddada u hadhay haba yaraatee wax walaaga oo xukuumadda uga soo socda saxaafadda inaanay jirinba mid baa se kuu sheegaya xukuumaddu haddii ay horena ugu riyoon jirtay weli imikana ku riyoonayso inay saxaafadda xeerkeeda bedesho oo mid gowracayo madaxa kaga istaagaya saxaafadda madaxa bannaan ay soo saarto annagaa joogna mari mayso nana dhaafin kari maayaan suxufiyiintana waxaanu leenahay karaamada iyo qadarinta qarankani leeyahay awalba waa dhowri jirteen waa ilaalin jirteen idinkaa halkaa gaadhsiiyey oo caalamka baray somalilan waxay tahay maantana cadaadis kasta iyo caburin kasta oo xukuumadda idinku hayso u dulqaad yeesha samir u yeesha jiritaanka
qadiyadda somalilan iyo hirgelinteeda iyo amnigeeda iyo dhowristeeda waa waajib qaran oo idin saaran cid kale oo ma garanaysaa arrintaasi ma garanaysaa maanta lagula dardaarmayo idinka hayna ma jirto waayo xukuumaddii shaqada qaban lahayd habeerate waa ka gaabisay 100%. agaasimi dadkuuna daawan imika mid may ballan qaadaysa aniga wariyaasha xidhxidhan ee sifaha sharci darrada ku xidhan dadka hortooda ma ka ballan qaadaysa inaad sii daynayso waxa weeyaan waayo qodobka 11 ee xeerkan imika aynu haynaa wuxuu sheegayaa xeer kasta iyo sharci kasta iyo wareegto kasta iyo amar kasta oo khilaafsan xeerkoodan waxaan ahayn inuu sharci darro yahay fariid inamada xidhxidhan ee berbera ku xidhan ee hargeysa ku xidhan imika dadka ma u ballan qaadaysa inaad sii daynayso wayahe yusuf Agaasibaa kala hel. fariid hargeysa iyo xusuufiga ku xidhan walaal lix ogaal baa foor cabdirashiid baa ku xidhan horta ibraahino horta heedhe horta waxaan leeyahay muxuu ahaa beerlaxawsiga afayeenka xisbiga wadani saxaafaddu caqligeeda qabtaayo intaa kusoo joogsan mayso caqligooday qabaanoo iyagaa yaqaana cidday mataqaanaa wixii xaqa u arkayaan wixii xaqana waa lagu taagir wixii xaq daraka ku taagir waan kuusoo noqday dhegeyso ilaa laba dhagax bay wada socdee waxa weeyaan markaa muxuu ahaa horta ibraahino taa cabdiraxmaan ciro gudoomiyaha baarlamaanku qayb uu ka yahay mataqaanaa qarankan waana tiir ka mid a tiirka labaad ee qaranka marka horta inaga qolada cid mooyaane labadeennan qolo saxaafad iyo xeerkeedba dabaasha waynu ku wada jirnaayo waxba ha ka mataqaanaa beel gaar ah la raadin walaalan kuus horta walaal daba kaas cad ibraahino weedhe cad ibraahino afayaan heedhe horta xisbiguna waa xisbi karaama leh de ku dar caqli iyo tala ku dar meeshaa ma sheegaya ta labaad waxa weeyaan walaal wixii mataqaanaa suxufiyiina xeerka iyo sharciga ayaynu u maraynaa ma maqlaysaa dee anugu ka xidhayna ma yihin ka soo daayana ma yihin xeerkaana xidha soona daaya isugday horta aan fahansiiye markaa qodobka meesha yaalla waxa weeyaan waar wixii khaladaad jira labada dhanba aqoon darro ku afuufid iska qabasho intaba aynu barbarkay ka baxdaa bakayla qabeen noqono aynu hagaajino waxa kaloo leeyahay eriga walaalkay culadley malaashna shaydaama ka keenee inagu cid shaana ma jirto dawla horta ibraahim naga daayo haddii la isugu tagayo waa gaar ana cid baan soo kaxayn lahaa waxa idin ma taqaana qoliyo badan soo kaxayaa baa hayde haddaad saddexiin dhex bartaan markaa walaal waxaa jira walaal cid curada walaal waddankana waynu soo xoreynay meel fiican waynu soo marnay xorriyatul qawlkuna waa lambar 1 cid shaana ma jirto cid hasdaana ma jirto ee waxa weeyaan inankawna toorjarka ka daa qaranka iyo xisbiga iyo diinta iyo cadaaladda iyo nabadda yaani isagana lagu gafinuun pointku waa intaas uun waxba inaga ma timaadeen hadda intaas sameeyno anu baa halkan horta maanta waxaan leeyahay qolada saxaafadda waxaan leeyahay saxaafadan anigu eeray odhanaya xalay toolaan daawanay waxay afkooda ku qirteen inay kulmiye berigii nooga hiiliyeen u cudbaan ha xisbi mucaarada baana waxay sheegeen inay kulmiye ay abaal u galeen dhegeyso ayay sheegeen oo abaalkii maanta waxaan leeyahay horta abaalkii baa idin haysta qolada saxaafadda waxaan leeyahay hadhowna curud madax baanu ka dhigaynaa markaanu dib u helno curud laftiisa iyo ibraahim iyo qoladan oo dhanna iminka inta dawladda ugu badan aanu gelno waa suxufiyiin mutacalimiin oo dawladda ku jira intan kalena waanu ka dhigaynaa dhibaato markaanu dib u qabsana haddii la dhaa waayahay waxaan jecelahay inaynu u gudubno gunaanadkii doodayna ayaynu soo gaadhnay inaynu xalka iyo wixii lagaga gudbi kara xarigan iyo weliba dhinaca wariyaasha eedda la saarayaba wixii lagaga gudbi kara inaan u gudubno waxaan ugu horeyn jecelahay inaan curad ku wareejiyo oo wargeyska yoolna gudoomiye waa gudoomiyihii hore urka suxufiyiinta somaliland sooljan ahaa xalka sidaad u aragtaa oo xariga lagaga gudbi karo wariyaasha aqoontooda lagu dhisi karo guud ahaan halku wuxuu noqonayaa horta xarigu dhinacan ka imanayo xukuumaddu waxaa looga baahan yahay xukuumaddu in ay ku wacyigeliso hay-adaheeda in gefafka kaga yimaada saxaafadda loo maro procedureka sharciga ee dalka u yaala oo wariyaha marka uu gaf ka galo ninka mas-uulkii dacwoodo isagoo shaksiya hadduu wasiir yahay iyo hadduu agaasiman yahayba dabeetana wariyihii waaran maxkamadeed lagu soo qabto dacwiyo maxkamadda yimaado si madaniya maadaama kiiskiisu madani yahay waxaa kaloo lagaga bixi karaa xeerkaa saxaafadda xildhibaanku hayo ee inoo ansaxaa inoo dhaqangalka ah oo aan qabo inaynu ku banaanayno haddii aynu iimaansano waayo lama tijaabin xeerkan waa la sameeyey laakiin hal dacwad laguma tijaabin ilaa muddadii u dambeysay xukuumaddii riyaale iyo 60 sane ee xukuumadda kulmiye
lama tijaabin xeerkan gudolooyinkiisana lama ogaan karo ilaa wixii la tijaabiyo marka xeerkan ha la tijaabiyo dacwadana ha loo maro taa waa lagaga bixi karaa wariyaashana warka si siman in loo siiyo oo xukuumadda executive-ka iyo xildhibaanada golayaasha qarankuba dhammaantood cid markuu wariyuhu war uga baahdo inay warka siiyaan telefoonka ka qabtaan la ballamaan haddaanay markaa waqti hayn markuu u sheego inuu war noocaas oo ku saabsan hayo inuu si u dhexdhexaadiyo oo balance gareeyo oo miisaamo inuu sayrkiisana u siiyo fursad taana waa lagaga bixi karaa booliska hay-adaha amniga booliska oo qaranka dee hawl badan u haya oo waajibaad badan u haya oo amnigoona suga intaynu hurudno laftooda in lagu tababaro oo ay xukuumaddu qayb weyn ka qaadato iyadaa dhaqaalihii haysa iyadaa odi hayse in booliska lagu tababaro macaamilka saxaafadda oo kamarada aanay u arkin ake ama bebe aanay u arag ee u arkaan nin dee amnigii ka shaqaynayay sharaftiisii karamadiisii u shaqaynayay inay u arkaan taas waa arrimaha noocaasa lagaga bixi karaa saxaafaddana waxaa iyadana la gudboon institutionsku in dadka madaxda ka ah siba editoriska ayaa dee mas-uuliyaddii haya oo ninkii wax karinaya dee ahaa kuuga ah waa inuu mas-uuliyadda ka saaran qaranka iyo warkan uu baahinayo waayo boqolaal aqoon-yahan oo professorada waxu gudbinaysaa dadka aqoon badan baad waxu tabinaysaa waa inaad ku xisaabtataan warkaad qorayso xataa lahjada aad ku qorayso xagaysa qaar dee weshaysa qaar qoraya madaxweynaha dalka kusoo guryo noqday dee guryo noqday waa cay kelmadan guryo noqday af soomaali marka la eego waa cayde maaha wax loo isticmaali karo guryo noqosha waa qof anaanowa oo magaranaysaay ama caafimaad dar hayso ama aan xiskiisu dhammayno aan dee xeradii iyo sabadii guriga ka fogaanayn baa layaa wuu soo guryo noqday marka xitaa erey bixinta la isticmaalayo in dee afka la isticmaalaya la eego oo ay warbaahintu miisaanto luqadooda iyo lahjadooda markay xitaa warka qorayaan markay tabinayaan ku fekeraan inay erey bixin cusub keenaan oo dadka wax u ah inay kii hore soo nooleeyaan inay mas-uuliyadda noocaas oo dhan maaha inaan wasiirkan xaqiisa ilaaliyo mujtamaca readerska iyo kuway daawanaya iyo akhristayaasha iyo dhegeystayaashaba waa inaan ku xisaabtamaa aqoontooda iyo cilmigooda inay 100 jeer iga badan yihiin oo afkan wuxuu ugu sheegayaa noqdaa af kala duwan oo kii aqoonta lahayo kii hooseba aan fahansiin karayo oo amnigoodii kala hadlayo oo waxbarashadii kala hadlayo entertainment loo sameeyo wayna wax soo ku xisaabtamaan marka inta la helo wax saxaafadana taa laga helo xukuumadana laga helo qodobada faraha badan ee aan ka soo sheekeeyay waxa yaraanaysa isku dhacan faraha badan iyo mas'uuliyiintan maqiiqan ee sida maayarka berbera ee daf dadka ee ku faanaya waliba xarigii يوسف كيسي اسمع halkastaad u aragto اسمع waxaan jecelahay inaad انا soo xidhay اسمها halkastaad may u aragto xalku horta waxa weeye number 1 xeer baynu leenahay xeerka inaynu ku dhaqanno oo saxaafadda lagu hago xeerkaasi agaasimuhu mu eegin malaayo qodobo badan oo wariyaha qabanaya ayaa ku jira oo ciqaabna u noqon kara imika qodobka 15aad waxyaabaha tabaysaan ku sheegaya qodobka 15aad 13aad 14aad 15aad waa qodobo la qabanaya wariyaha hadduu khalad sameeyo ama uu matalan qof si gaara u taswiiro ama si gaara u dabagala ama ma garanaysa qof uu iska caayo shakhsiyadiisa war beena sameeyo ciqaabteedina way daba socotaa waxaan oran lahaa xeerka golaha wakiiladu ansixiyeen aynu ku dabagal wariyaasha oo waliba qolada xukuumaddu ku dabagasho wariyaashana mid baa kula dardaarmaya wixii horeba waa wiilaalin jirteen wixii qaranka ceeb ku ah qaran inagu waxbaynu kala jiijiidan karnaa waxbaynu isku qabsan karnaa kala afkaar baynu noqon karnaa wixii qaranka ceeb ku noqon karaya horeba waa wiilaalin jirteen idinkana ilaaliya baan leeyahay agaasimahana waxaan leeyahay wasaaradda warfaafintu waa wasaaradda ugu muhiimsan ee waxaanaynu ka hadlaynaba waa inay iyada sharcigu ka bilaabmaa
sharcigu waa inuu iyada kala bilaabmaa t v qaran baa jira qaranku wada leeyahay xisbi qaran baan ahay intaad joogtada makaagaasima ka ahayd anigoo xogay warfaafinta ah oo wasiirka soo socday warfaafinta noqonaya weli taswiir aan lay kamay bixin t v qaran mar maaho laba maaho saddex maaho afar maaho boqol maaha inta wariyuu iga qaaday kamarada marka dana ila soo hadlay guriniyo maamulkii baa diiday anigu wax ceeba ku hadli maayo wax qaranka ceeb u geysanay ku hadli maayo wax inoo wada dana baan ka hadlay xaq baan u leeyahay inaan t v qaranka ka soo baxo oo raadiyo Hargeysa ka baxo oo ummadayda aan u sheego wax waxa kaloon idin kula dardaarmaya xeerka laftigiisu inuu waqti u sameeysan si maamulada sida barasaabada gudoomiyaasha gobolada si ay xeerkan u wada fahmaan inaan faafisaan xeerka wuxuu tawriyaasha laftigooda ay ku tahay ay de wanaag u tahay wariyaha laftigiisii markuu ka baxo xeerkii wasaaradda warfaafinta marka waxaan leeyahay waxaan kaga baxaya waa inaynu xeerka dhanka wada taagnaa oo aynu ku wada qaadnaa aniga hadduu wariyuhu ku khaldamo waxa weeye xaq baan u leeyahay xeerkan lagu qaado waliba ciidii amniga haysiday ku qaado markaan dacwoodo ee sifo sharci aan u maro aad baad mahadsantahay ma garanaysaa marka waxaan leeyahay xukuumadda waxaan leeyahay xeerka aynu dhan kaga wada taagnaano aynu dhinac aad baad mahadsantahay afayeen adigan ku soo gudbaya halka sidaad aragtaa laga bixi karaa bismillaah adoo codbaayaa ku dhawaad horta saxaafadda xarigan waxay kaga badbaadaysaa waxa weeyaan in ciidamada daabkeeda haysa ay ku dhaqanto xeerkii loogu talagalay in lagu dhaqo saxaafadda laftirkeeda waxaan waa shaqo waa hawl qalad baa ka dhici kara gaf bay samayn karaan waa bini aadmi waxaa loogu sameeyey bahalkan in lagu ilaaliyo iyaguna ay bartaan oo isku ilaaliyaan iskuna difaacaan iyaguna ay kaga joogsadaan qaladaadkii ay ku geli lahaayeen saxaafadda hadday shakhsi ka gelayaan iyo hadday institutionada qaranka ay ka gelayaan intaba hadii jaraale blaysku dee amar baa la siiyaa ama wasiir la socda amarka siiya ama taliyahooda amarka siiya ma aaminsana anigu blayska somaliland inuu cadow ku yahay gaara saxaafadda laakiin waa cidda cadowga gaarka ah u aragtaa waa mas-uuliyiinta sarsare ee qaranka hogaaminaysa weeye cadowtinimada inay ka saaraan meesha oo ay u bedelaan inay walaaltinimo ku bedelaan oo u arkaan wax qarankani leeyahay saxaafadda madaxa bannaan inay tahay oo tiirarka qarankani ku dhisay tiir ka mida ay tahay ay u arkaan madaxda qarankuna iyaduna meesha laagtay oo waxyaabaha laga gudbi karo maxaa la kula yidhaahdaa caburinta iyo tacadiga suxufiga lagu hayo dhanka kale suxufiga laftiisa waxaa loo baahan yahay isaga laftirkiisu inuu xeerka barto oo uu ku dhaqmo qawaaninta iyo amarada uu xeerkani furayo si uu isaga ilaaliyo in uu ku dhaco dabinno ama gafaf uu galo oo uu ku geli karo uu ku mutaysan karo ciqaab uu ku mutaysan karo waxaa kaloo nugu baaqaynaa hay-adaha qaranka horumarkiisa jecel inay sameeyaan dhiirigelin ballaaran oo saxaafadda ah oo ay kor ugu qaadayaan mihinada saxaafaddu leedahay iyo barashadeeda si voluntary ah ayaan ugu baaqaynaa maxaan ku dhahdaa ganacsatada qaranka maalqabeennada ah iyo hay-adaha kale institutionada kale jaamacaduhu ay ka mid yihiinba inay sameeyaan hay-ad ballaaran fundraise yaroo fudud baa lagu samayn karaya loo fulin karaa inuu qayb ka noqon karo innagoo weliba mucaaride in la sameeyo meel lagu tababaro oo saxaafadda lagu baro xeerarka iyo qawaaniinta iyo habdhaqanka wanaagsan iyo qaabkay shaqadeeda u gudanayso waxyaabahaasoo dhan marka laisku soo ururiyo waa waxa aan u aragno inay lagaga bixi karo xadhigga saxaafadda laakiin waxa weeyaan dacwadii waxaa tiri walla reer aan ogahay ma guuro bay tiri yeesheedii bay cuntay moogta mana guuro mana dego miyahaad eeg marka yeesha ka cunto reerku dee ma guuri karo hadday is idhahdaan degana already wax kale ku xidhxidhaan wixii ma haystaanoo degisna ula meesha inta isla xisaabtanka xukuumaddu maqan yahay ee qofka wasiirkii waxaan uu ku kacay ciddii kala xisaabtami lahayd aanay meeshaba joogin
oo wasiir kasta iyo maxaa la dhahdaa agaasimo kasta ama maarayo kasta uu ikhtiyaariyan wuxuu doono u samaynayo wixii uu doono maskaxdiisa ka soo baxdana ugu dhaqmayo dee sharcigii waxay noqonaysaa barkumataal bay noqonaysaa bar madooba maanta somaliland kaga taallaa kutumashada saxaafaddu caalamka o dhan waa ka warhayaa waxaana noqotay xukuumaddani tii ugu xadhiga iyo cadaadiskii caburinta badnayd intii jamhuuriyadda somaliland jirtay marka waxaan ugu soo ururinaya aan kusoo gebagabeynayaa dib aynu igu soo noqono sharciyaddii iyo qaanuunkii waxaynu ku jirnaa marxalad xasaasiya doorashaa la gelayaa mid baarlamaan baa la gelayaa mid waxaa la gelayaa madaxweyne waa doorashooyin aada u culculus weeye saxaafadda madax banaanideeda ha loo daayo faragelinta xukuumaddu ku haysana ha ka dayso iyaguna ha dhowraan qawaaniinta iyo shuruucda loo dejiyey oo ha ku dhaqmaan intaasaan kusoo gebagabeynaya way aad baad mahadsantihiin inta badan waad iskaga waafaqsannahay marka sida wanaagsan loo hadlayo saxaafad xeerkaan ku dhaqanno saxaafadduna xeerka ha ilaaliso muxuu ahaa tababarka saxaafadda ilaalinta qofka cirdigiisa iyo maxaayde qarannimada iyo diinta iyo mabda iyo wanaagga dhexdhexaadnimada intaasoo dhan waa intaan isla wada aaminsannahay inaan tababaradooda kor u qaadno waxaa lagama maarmaan oon ku taageersannahayna in aynu muxuu ahaa baacimishirkuna taageeraan si iyada lafteeda maadaama duruuf badani ku jirto adag lafteeda oo tiir qarankii ka dhismaysa ka tahay dawladduna taageerto qodobka meesha yaalla waxa weeyaan xeerka waanaynu ku dhaqanaa waanaynu ku dhaqmaynaa wixii khaladaadee dhacana da aynu saxno oo mataqaanaa ereygaa uu leeyahay xildhibaanku maxaayde wadareeralaan guurin waxa weeyaan anna waxaan leeyahay wallahi haanta harkasaan biyo celinoo haddii marna waxaas xildhibaanka u jawaab gaariya wax kaloo lahaa aabasa waa laga sheegay markan aadmiga eegana aarsamansa markan eegana awlaadsee marna waxaas ibraahim jawaadan waxaas qarannimada eeg waxa weeyaan qodobka meesha yaalla war sharciga waynu ku dhaqmaynaa qof kuma gafi karo qof kama sarreeyo inankuna waa inuu xeerka ilaaliyaa qarankuna waa inuu inanka ilaaliyaa intaasaan anigu leeyahay waxaa kaloon leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin intii galdalooleyna jirtayna aynu isugu tagno ka wada shaqayno laakiin hadday cid ku dhaliisho dee dhibteeday noqonaysaa midda labaad waxaan aaminsanahay inaynu ka mid nahay dalalka geeska afrika ugu saxaafadda wanaagsan ee ugu horeeya xorriyatul qowlka laakiin xorriyatul qowlkuna dawalayaanu xadka ka bixin xorriyatul qowlka laftiisa xadka ka bixinoo wixii intaa ka baxsan dee aynu tallaabadeeda ka qaadno aad iyo aad baanad mahadsantihiin dhammaantiin waxaanan ku dhiirigelinayaa doodo noocan oo kale ah oo qodob kasta laga hadlayo waa in la sameeyaa yusufow xaq baad u leedahay walaal inaad ka hadasho tv-ga qaranka iyo raadioga qaranka sababtaa xisbi qaran baa tahay that is the principle xisbi qaran baa tahay taasna waa waajib qaran sababtoo ah maalinba qof baa xilka haynaya dhibaato taasi ma laha sababtoo waxaanu dhisaynaa qaran aynu wada leenahay oo aan shaarka qofku tushaa maalintaasi aanu ku ekayna mar walba uu ku egyahay saxaafaddana waxaan leeyahay qaybaad ka tihin dhismaha qarankane walaal kaalintiina ka qaata wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal intaasi waxaa noogu eeg doodii oo ku saabsan xarigga wariyayaasha oo ay gala qaybgalayeen agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta somaliland afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani iyo weliba xogayaha warfaafinta ee xisbiga ucid sida oo kalena guddoomiyihii hore ee ururka suxufiyiinta somaliland maxamuud cabdi guuleed oo aad dad badan u yaqaanaan curad doodaasi saaxiibadayda duubayay kamaradaha aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa dooda mid lamid ay intaynu dib iskugu soo noqon doono haddii rabiidmo waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo